walaal waxaad noo sheegtaa nabaradan sida ay ku soo gaadheen iyo waxa lagu dilay. waxa lagu dilay assalaamu calaykum waxa lagu dilay walaal nin islaameed oo shahaadanaya ayran kuma qalmo sida laajkeed baa lagu dilay. ninkii waxa markaa ninku wuxuu ahaa nin aan isaaqayn laakiin gabooya ah. adiga naftaadu waayo? aniga nafteedu waa isaaq waa Cabdilla Sacad. markaa yaa sidan ku galay? waxaan galay walaalka aabahay. isagii markaa xaq uu ku maqan yahay? aabahay uu joogaa. halkan buu galaa Sheekh Waarig annaguna qoobkan galnaa walaa. markaa qacmahan maxaa ka helay? qacmahan uu dildilay. waxa sidan ku galay waa maxay? waa silsilad iyo xarig isku xidhay. dhakhtar markaa ma fogeeyay? soo wuxuu hooyadaha ku dhaneeto araankan uu raadinayo xulay naftan kaaga jaray. inankii markaa inankina alku ku sugay? inankina wallaahi isba xaaladiisu khatar bay ku jirtaa. marna xaafad uu imanaya marna ma imanayo isagu amnigiisii wallaahi ma saxsana. oo la diiday? isagu la diiday leeyahay naftaadi baa la saaray miiska qudha laga jaray. mar haddaad doonatay inaan isaaqa taasale adigoo gabooyaa dawladina wax way nooga qaban weyday. kala dhibaatadaas aan haysto wallaahi. jirka meel kale nabar ma ka gaadhay? iga gaadhay. xagee ka mid ah? caloosha dhabarka. markaa ma wax caruuraad u dhashay inanka? imkan uur lahaa. imkan aanu ilmuhu waxaan malaynaya inuu baktiyey. nabaradii iyo dhaawacii lagu geystay? dhaawacii caloosha laga geystay. waxa la hoodo Mukhtaar Yuusuf Faarax. waxaan la igu galay nin gabooyaaba doonatay ayaa la dildilay markii la maqlay sheekada. waxaan xidhnaa 3 habeen 3 maalmood ayaan xidhnaa xarig iyo lagu hay qamcaay qoorta ka xidhnaa. ninka midgaanka maxad ka doonatay baa la igu sheegay. bilood baan ka wada soconay aan soo meersanay markii la isku hayay. ninka waxaan leeyahay ilaahay hay gargaaro caafimaad sare aan ilaahay waan weydiisanayaa ilaahayna hayla garab galo. dhinaca kale telefishinka Star waxa la hadlay aabaha dhalay wiilkani ay arintani ku dhacday. inanka gabadha iskuursadeen baa dhalay markii aan ogaaday inay soo mehersadaan isqabaana aabaheed baan u tagay. adiga soo ducaysid baan lahaa moogta oo tawaarmada ciyaalka istoorteen aan isku ducayno tii la muu sugin bee oo igu bilaabay. furbu igu bilaabay. burkii markuu igu bilaabay inankayga oo gacanta hayaan la baxsaday. inantiina waa la qabtay waa la dildilay markaa iyadina. bilow bay ahayd oo hore isku soo meersadeen oo waxay isqabeen. aduu muddo 3 bilood ay qarsood isku qabeen. ma gaynid ducadii iyo wixii aan u siday soo tanbur la igu bilaabay. waxay ahayd annaguna gabooyaan nahay iyaguna waa isaaq. sababtaas un baan anigu ma garanaysan lagu diiday. dhinaca kale telefishinka Star waxa la hadlay madax dhaqameed ka soo jeeda deegaanka wiilkani inanta loo diiday. habeendiina ku arka wixii naga maqnaa waka ilaahay maanta cadeeyay waxaan nahay dad walaalihiina oo Soomaalilandara waxaan dad islaama bal cidda annaka naga xarimaysa inaynu hablaheenu ay iskuursadaan iyo inamadeenu diinta islaamka idiina fasaxaysa in gaaladu idinka guursato oo gaalada in badan ay ku faraxdo markay gaaladu ka guursato annagoo islaama oo shahaadanayna oo isku dhaqana oo isku dala oo isku afa oo wax loo kala doonayna jirin waxa hablihiina naga xaaraantimeeyay gaaladana u fasaxay bal culumada reer Somaliland ama culumada Soomaalida ama culumada caalamkuba bal arintaas waa nooga soo jawaabaan. waxa hablihiina naga xaaraantimeeyay ee gabadhaas loogu cinqaabayo ee loo daldalayo ee leeynin reerkaas aad guursatay bal waxaan u bandhiginaa dadka culimada 24 saacadood masaajid baynu ku jirnaa waynu ashaadanayna muslim baan nahay baan leenahay afcaashii muslimnimadana dad in badan kuma arkino. intaasoo qadiyadood baa dhacday oo noocan oo kala ah
oo inaan yeelan istoontay ah oo sifadii sharciga hadla maray oo dadkii lacayn kala maray oo dhib iyo magaranaysa masaa'ib ka dhacay wax ka xumaaday oo ka damqaday oo ka hadlay oo ummadda uga degana maan arag culimada dad ka qabatay maan arag ciidan ka dhiidhiyay maan arag maxkamada ka dhiidhiyay maan arag dawlad ka dhiidhiyay maan arag cid maan arag intaaba samir iyo dulqaad baan ku waday oo bulshada iska magaranaysa dad ku celcelinaysa waxaan laga daayo أنا waxaan u soo jeedinayaa bulshada aan ka soo jeeday ee gabooyo ma kasta ku dhaqan tahay warnimo yahudulmiga noocan ah wuu farabatay oo tacadiga waa farabatay oo dhibka waa inagu farabatay waxaan iska dul qaadi karnaana Soomaalidu waxay tiraahdaa gobonnimadu waa geed ku baxa dhiiga ragga aninkana waa arin aad iyo aad xasaasi oo khatar weey inaan iyo inan baastoonay waa laba qof oo muslimiina waa laba qof oo shahaadanaya waa laba qof oo Soomaaliland dar waa laba qof oo meel ku wada barbaaray waa laba qof oo isirkoodii la garanay meesha ka soo jeedaan aabahood baa u tagay aabihii su'aashii labaad ku soo celiyay waa inuu gacanna ka jabay dhabaxana ku sameeyo dawladii loo ashtakoodina ay waxba ka qaban weydi khafeetadii buu sitaa war waxaanoo kale wax loo dul qaadan kara ma wax la aamin kara ma harin runtii anu arka noocan oo kala runtii uma arka arin ku dhamaanaya inaan mar walba ka cabano oo aan ka qaylnay waxaan u baahanay ficil baan u baahanay telefishinka Star oo dhowr jeer isku dayay inuu arintani wax ka weydiiyo qoyska kale ee laga cabanayo noomay suurta galin arintani waxa si kululu cabaareeyay xisbiga mucaaradka ee wadani xogayaha cadaaladda ee xisbigaasi Barkhad Jaamac Batuun ayaa cod dheer arintaasi ku cambaareeyay ficilka foosho xun ee dadnimada iyo damiirka sanbadiidayo runtii waa wax ceeb iyo cambaar ku ah habnololeedka bulshadeena oo wax runtii markaan anigu shakhsiyan aan arkay aan ka ilmeeyay aan ka damqaday oo yaani uu isbedelay damiirkaygu inaan isjeclaaday waa la isuba diidi karayaa khilaaf qoys baa iman karayaa laakiin qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuuray oo bashara oo kula diina oo kula dhaqana oo kula afa oo kula deegaana oo kula damiira oo kula dareena oo kula dadaala oo kula qarannimada kula jecel oo in muuqaal iyo mid macnawi iyo mid xisiya toona aynasan ka muuqan sharciga islaamkuna waa banaynaysaa dadnimadeena iyo damiirkeena sanna waa banaynayaa in inanta iyo inanka la isku ogola sabab la isugu diidayna ma jirto inanku ma kaafir ba ma islaam ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala naftiisa wuxuu ka xarimay waa dulmiga حديث القدس الله سبحانه وتعالى وحكول لي يا عبادي إني حرمت ظلم النفس نفت إذا وحن كحاران تميي شيء اللي إله هذا الظلمك أنا قول إلهي سبحانه وتعالى قوم كان اسكالهاي وجعل بينكم حراما لحدين لو وحن كان جميل حراما فلا تظالموه إيه يستلمينا إلهي بس ظالم كعسبهان وحن وارقنا أرن عيب قرن كقواه أنا قول باقينا هايدها أمنية hay'adaha garsoorka ku soo dhereeriya xidhitaanka mas'uuliyiinta axsaabta mucaaradka cidda xariga u baahan ee cadaaladda u baahan ee sharciga in la horgeeyo u baahan oo cidda tacadiga noocaas geysatay